biilaan iyo oomana bahsan ayaa ka jiraan qaybo ka mid ah xaafadaha ku yaalaan xerada qaxootiga Dhagaxley. Halkani waa Buula Barwaaqo waxayna ku magac dheer tahay Buula Baqti, waxaana ku nool in ka badan 10 kun oo qoys, kuwaasoo sanadkii hore laga soo barakiciyay xerada qaxootiga Ifalabo. Dadkani ayaa halkaasi ku qabeen goob caafimaad iyo sidoo kale goob waxbarasho. Kadib markii loo soo raray xerada qaxootiga Dhagaxley ayaa waxaa soo food saartay dhibaatooyin ay uga badan tahay biyo la'aan. Dadkani ayaa u badan dad danyar ah. Inta aan la joogay ayay ii sheegeen inay halkani ku haysato dhibaato badan oo ay uga daran tahay biyo iyo caafimaad. Qaar ka mid ah bulshada ku nool halkani ayaa inooga warbixiyeen dhibaatadooda, waxayna hay'adaha ka codsadeen inay dib u soo eegaan. aniga oo ka waramaya qaxootiga laga soo haaqay Ifatu dadka keenay la soo barikaciyay la keenay Dhagaxley dusheeda la soo dul saaray oo maanta wax qabashan aan loo haynin hay'adan ay dush nolol maanta oo haysanana aan jirin noo dhaanto ay wax noo qabato haday noo qaban karto ay noo qabato haday oo qaban karin ayna dhaafisay wadanka oo ka hor nimid wadanka ayna dhaafisay hadii kale wax ay noo qabato intaas aan codsanayna hadda aan degan soo diisay nolol soo dajiyay wax aan ku noolnahay oo nolol fiican aan ku noolnahay ma jirto biyo la'aan dhul xaq ma qabno daryeel ma qabno wax ilaahay ma qabno ma leh rafaad isra aan ku joognaa aan arkan ilmaha oo naga dhamay gaari xaafadaha waxaan aadayna buuro beledka hoose Dhagaxley biyaha tubooyinka la saddex xaafadood tubadan lagu saaran yahay ma helno saari maanta wax yar ay noo soo dhaceen biyo dhanba oo uu aan dacwad meel kastana aan tagnay wax biiliga horta ma faadba meesha aan ugu haysan biilaanta aad iyo aad biilaanta noo saameysay wax biyo oo haysan ma laha marka biilaanta aad iyo aad noo saameysay meesha wixii kaar oo ku haysan hata waxba kuma qaadana kaarasha maanta aniga keeda faraalaas ahay kaar kale ugu dul qornay hooyada iyo gabadha aan kale oo labaale kaar aan cambaha doorka lama soo qaadan kowli weydii halka aan ka imaanay wax dhibaato ah ku jiri ma lahayn marka hadda marka inta imaanay baa dhibaatadaas aan kulmay biilaanta ayaa ka jirta meelo badan oo ka mid ah xeryaha qaxootiga Dhadhaab, inkastoo kuwana ay aad ugu daran yihiin. Sidoo kale waxaan xiriir la sameynay xafiiska Kenya oo qaabilsan arrimaha biyaha, waxayna noo sheegeen in sida uga dhaqsiyaha badan dadkani biyo la gaari doono. Xasan Kaafi, Badcas 24 TV.